Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada video cusub. Videogan waxaan uga hadli doonaa sida degdega ah ee xirfad cusub aad ku baran karto. Waxaan uga hadli doonaa dhowr qodob oo kaa caawin doona sida aad u baran kartid xirfad cusub si dhaqsi ah. Waxa ugu horeeya marka ugu horeyso horta inaan barano waa maxay mabaadi'da helitaanka xirfad cusub. Mabaadi'da waxay ku taagan yihiin dhowr qodob. Qodobadan waxa ugu horeeya marka ugu horeysa waa inaa adi doorataa xirfad ama mashruuc ku farxad gelinaya ama dhib aad rabtid inaa xalisid. Waxa ugu horeysa meeshaasay ka bilaabanaysaa. Haddii waxa aad rabtid inaa barato oo aadan hami u haynin ama jacayl gooni aadan u haynin way adag tahay inaad sii baratid. Waxaa fiican qofka bini'aadamka ah inuu helo mashruuc xirfad ama dhib uu jecel yahay ama uu jecelaysanayo inuu xaliyo dhibaatadaas. Taasna waxay kaa saacidaysaa in mashruuca marka aad jeceshahay aad waqti badan iyo juhdi badan aad gelisid. Taas waa number one. Waxaa sidoo kale soo xiga inaa haysatid qalabkii ama agabkii aad u baahneed inaa xirfadaas ku barato. Qodobkan labaad xiisaha uu leeyahay waxaa waaye qofka xiisaha uu wax u qabo hoos u dhacayaa haddii uunan agab saxa u haysan. Kasoo qaad tusaale ahaan waxaa rabtaa inaa computer science baratid oo sida programming iyo waxaas loo sameeyo aad baratid. Waxa ugu hore aad u baahan tahay waa inaa heshid laptop. Waa qiyaastay. Okay. Tusaale ahaan waxaa rabtaa inaa baratid tennis. Tennis ugu yaraan waxaa u baahan tahay kubbadii tenniska lagu ciyaarayay ushii lagula dhufanayay sidoo kale courtkii ama meeshii garoonkii lagu ciyaarayay waxyaalahaas u baahan tahay. Qalabka ama agabka haddii aadan haysan way adag tahay. Tusaale ahaan kasoo qaad qofka dhaha maanta ani duuliyanimada computerkan ka baranayaa oo ma rabi inaan diyaarad dhex fariisto oo duuliye aan noqdo aad bay u adag tahay. Waxaan rabo marka waxa waaye si uu qofku u fahmo aan tusaalayaasha soo qaadanayna. Sidoo kale dhakhtar qofka markuu rabo inuu noqdo ugu yaraan waa inuu sanado badan isbitaalna tagayo uu kasoo shaqaynayo uu dhakhaatiirta kala caawinayo uu dhakhaatiir kale kasoo hoos shaqaynayo uu bukaano kala duwan arkay hadhow way fududaanaysaa marka inuu dhakhtar buuxa oo meel fadhiista kaligiis uu noqdo. Marka agabka ama qalabka waa muhiim isagana. Sidoo kale gadaalna waxaa uga hadli doonaa hadduu agabka ama qalabka uu kaa khaldamo. Sida ku xigta qaybtan marka waxaa asagana uga hadli doonaa ciribtirka ama yareynta caqabadaha. Waa maxay caqabadaha ku gudboon inaa xirfadan barato? Hadday xirfad yar tahay oo waqti yar qaadanaysa iyo hadday mid weyn tahay oo waqti dheer qaadanaysa. Xirfadda waxay noqon kartaa short term ama long term. Labada midka ee noqotaba ha ahaatee waxaa u baahan okay short term haddii aan tusaale ahaan kaasi typing oo kale typing inaa baratid haddaa rabtid oo computer se loo type gareeyo short term ay noqon kartaa laakiin waqti dheer ku caawin doonta. Haddii laakiin long term xirfad ah oo kaa saacidaysa ee noqonaysana inaa baratid waxaa ka mid ah muxuu ahaa inaa qofkan uu caafimaad barto. Caafimaad it will take you like muxuu ahaa 10 sano dhowr iyo 10 sano kugu qaadanaysaa inaad baratid dhakhtar fuula noqotid. Qaybtan dhowr nooc ee noqon karaan caqabadaha laakiin waxaa muhiim ah ciribtirka ama yareynta caqabadaha kaa hor istaagi kara xirfad cusub. Waxaa kow ka ah inaadan qalabkii saxda ahaa aadan haysanin ama aadan isticmaalaynin. Labo waxay noqon kartaa in iska xakamee weyso mobilkaaga ama waqtigaaga xakamee weyso ama asxaabtaada iska xakamee weyso ama TV-ga. Tusaale ahaan qofka hadduu rabo inuu focus wax saaro uu rabo wuxuu u baahan yahay inuu fariisto meel aanan cidna ku wareerinaynin oo mobilkii oo notificationskiisa ama wixii silent ay saaran yihiin TV una ka hoos hadleen asxaab ayna ka korqaylinaynin ama muxuu ahaa caqabado kale ayna ku gudbooneen. Tan kalena waxay noqon kartaa cabsi badan dareemayo ama inuu aad u xishood badan yahay inuu naftiisa ka shakisan yahay ama inuu kibir dheeraad uu ku jiro. Waxaa jira waxyaalo badan oo kaa hor istaagi kara inaa xirfad cusub baratid ama caqabad kugu noqon kara. Mid kasta oo ka mid ah kuwa hore aan u soo xusnay caqabadahaas ayaa adkeynayaba inaa bilowdid xirfad cusub. Sidaa awgeed waxaa hoos u dhacaya hamigii aad u haysay shayga cusub iyo xawaarihii aad ku kicisay markii ugu horeysay. That's why ay u badan tahay
qofka inuu wax bilaabo balse laakiin uuna dhammaystirin wuxuu uu bilaabay. Waxaa laga yaabaa in uu 2 maalin 3 maalin uu xawaare zaa'ida jaro laakiin uu tiiro dhigo. Sababtoo waxaa jirta motivationka waxa uga sii muhiimsan qofka inuu mar walba uu motivation leeyahay. Waxa uga sii muhiimsan in caqabadaha uu tirtiro. Haddaa caqabadaha yareysid waxaa kordhaya hamigaaga waxaas ina hore u sii wadid ah. Sidoo kale qaybta afraad ama ugu dambeyso, samayso waqti go'an oo aad xirfadan ku kobciso ama aad ku bilowdo. sidaa ognahay qof walba 24 saac u haysta, lama kala waqti badna. 1440 daqiiqo qiyaastii wax ka badan ama ka yar ma helaysid maalin walba. qof walba wuxuu ku xiran yahay ama qofka kale uga horumarsan yahay sida uu 24 saac u haysta maalinkii u maareeyo. maalin kaa tagtayna dib kuuma soo mareyso. soo waqtigan saa uga faa'iidaysatid 8 saac haddii aad jiiftay 16 saac kuu soo hartay. 16 saac waa salaadahaaga, waa labiskaaga iyo qubayskaaga, waa cunto cunidaada, waa haddaa shaqaysi shaqadaada, waxbarasho. waqtiga inuu saas u kala qaybisan yahay adoo og waxaa usii baahan tahay waqti aad wax dheeraada ku barato. waqtigaas xaguu ka imaanaya isweydiin kartaa, ilaan dadka ma kala waqti badne. saa ognahayna alwaqtu ka sayf in lam taqtacu qatacak. waqtiga waa sida sayftoo kale, haddii aadan adiga jarin isagaa ku goynaya. waxyaalaha aa u baahan tahay inaad dib u milicsata waxaa ka mid ah, tusaale ahaan asxaabtaada, ciyaarahaaga, baashaalkaaga, game inaad ciyaartid, tv inaad daawatid, miidiyaha inaad facebook maanta dhan ku jirtid, damaashaad kuwaas waqti uma weysid. laakiin markaa rabtid inaad xirfad cusub biloodid, waxaa leedahay 24 saac igu yar tahay, maanta wax ma akhrin, maanta wax ma qorin, maanta cashar ma dhegaysanin, waxba ma kororsanin. waxa uga hortagi kartaa in aad marka ugu horeysa waqti aad samaysto. waqtigaas aad go'aansatayna aad ka dhigatid xilliyada aad active tahay. dadka qaar waxaa jirta night owl Allah, waa dad habeenkii jecel inay wax akhriyaan, wax qoraan, wax bartaan. dad waxaa jira aroorta hore salaada subax markay soo kacaan oo kala jecel inay wax bartaan. naftaada adaa taqaanid qofka aad tahay. xilliyadaas saacad mise 2 saac oo kamid ah u xir mobilkaaga, geli notification ha kuu soo dhaca maalin walba dhahaya saacad hebel waxaan aad samaynaysaa. okay, waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo haddii ay jiraan qof akhriyay book la dhaho Limitless uu qoray nin Jim Quick la dhaho. wuxuu leeyahay methodology oo la dhaho FASTER, FASTER. aad waxay ugu soo jiidatay qaybtaas methodology-gaas. wuxuu uga hadlaa 5 xaraf oo lagu soo gaabiyey FASTER. F waxay u taagan tahay forget. marka aad rabtid inaad fariisatid oo wax cusub aad baratid ama aad akhrisid, forget. maxaa okay inaad wax bartaan rabaa, inaad xifdiyaan rabaa, maxaa hilmaamaa au qofkiis leeyahay. waxaa hilmaamtaa wax kasta oo markaas madaxaaga ka guuxaaya, ama wax kasta oo aad waxaas akhrinayso waa ka taqaanaa aa isleedahay. dadka qaar waxaa ka hor istaagan inay wax cusub bartaan ama akhriyaan ama kororsadaan, waxaa ka dhaadhacsanba inuu already yaqaano. way adag tahay marka haddii galaas markii hore buuxay waxba korka ma ugu sii shubi kartid. marka ugu horeysa waa inaa horta maskaxdaada u furtaa. saa ugu furi kartidna waxaa waay forget. xilligaas aad taagan tahay inaad waxba aada ka garanayn kasoo qaad si aad basicska qayb walba aa u barato. hadday madaxaaga markaas wax ka dhex guuxaya ay jiraan ama caqabada iyo dhibku haysto, iska hilmaam. sidoo kale haddii to do list ama shaqo ama wax kugu taagan yihiin, qalin warqad qaado, qoro si madaxaaga aa uga saartid isla markaas. okay, waxay u taagan tahay oo FASTER ku jirta active. qofkan marka uu rabo inuu wax barto ama uu wax akhriyo, waxbarashada waxaa u baahan tahay inaad la falgasho. ma ahan wax oo inaa fariisatid oo aad meel daawanaysid ama aad meel iska fariisanaysid madaxaaga toos u galaya. waa inaad la falgashid oo adiga dhan nashaad aad dareemaysid marka aad wax diyaarinaysid ama akhrinaysid ama wax cusub aad baranaysid. esta waxay u taagan tahay state. waxaa lagu leeyahay wax walba aad baranaysid waa state dependent. xaaladda markaas aad ku jirtid bay ku xiran tahay emotionkaaga. haddii aad xanaaqsan tahay way adag tahay inaad wax
dhuuxdo. haddii aa aad u faraxsan tahay waxaa laga yaabaaba inaa waqtiga akhriska aad sii dhaaftid oo saacadii 2 saaca ugu talagashay ee aad flow stage waxa la dhaho aa gashid. oo flow stage waxaa la lahaa qofka markuu 15 daqiiqa wuxuu u akhrinayo oo si camiiqa inuu u dhex galo ay ku socoto, oo xitaa aadan marka qaar maalimaha qaar u baahan inaad qadaysid ama shaah cabtid ama biyo aa cabtid. waxaa gashay xaalad la dhaho flow stage oo ah in ay maskaxdaada iyo wixii ay isla falgaleen aa baranaysay. tii oo fasta ku jirta waxay u taagan tahay teach, bar qof kale. sida anaga dhahno bar ama baro way isla socdaan inta badan. qofka marka uu wax barto in uu qof kale sii baro waxay ugu sii fiican tahay adigoo 2 mar barta camal wahay, madaxaagana kama fuqeyso. u fiirso, ma ahan inaa hebelow kaalay maanta waxaan bartaan kuu sheega aad dhahdid. dadka markay asxaab yihiin way sheekaystaan, marba mawduuci waxbaa laga sheekaystaa. waxa adi ama markaas aad baranaysid baa mawduucaas ku bees garayn kartaa in asxaabtaada uga sheekaysa, ayagana ay ku dhegaysanayaan ama ay ka falcelinayaan. that means waxaa soo barata dhanaa 1 mar ku shubtay ama 2 mar ama 3 mar u kala qaybisi sidee doontaa noqoto. haddii aad asxaab qof wadaag waxbarasho wadaagtiina inaa is hor fariisataan baa marba qof wuxuu ka fahmay casharka sharixi karaa ama waxaa markaas baranayseen. teach ay u taagan tahay tiida. er labada xaraf ee ugu dambeeya er intercalendar. muhiimadda waxaa waaye meeshan inaa sida diet aan kasoo hadlayay waxaan horta aa waqti u astaysaa. haddaadan waqti u astaynin way adag tahay. that's why marka aa rabtid inaa wax baratid isku day waqti inaa u goysid, waqtigaasna aad muxuu ahaa kalandarka mobilkaaga gelisid oo reminder kuu soo dhacayo oo xilligaas aad joogtaysid. hadduu xilligaas xitaa 20 daqiiqa yahay, 15 daqiiqa hadduu yahay bareega qadada iyo u dhexeeya xilliga oo muxuu ahaa salaada duhur, whatever it is adi xilliga aa rabtid ha noqoto, laakiin waxaa ku dadaashaa inaa waqtiga aa xirfadaas cusub aa baranaysa aa waqti u astaysid. okay, arta ugu dambeysa inta badan waxaa lagu tilmaamaa inay tahay review. fideoyo kale aan uga hadlay qaybtan review. marka aad samaynaysid oo aad rabtid wixii inaad muraajacaysid dhowr nooc oo kala duwan aa u samayn kartaa. sida ugu wanaagsan waxaa waaye wax la dhaho space repetition. space repetition waxaa waaye inaad wax hadda akhrisid 2 maalin 3 maalin kadib forgetting kaafiga inta badan way badan tahay, boqolkiiba in badan percentage inaa hilmaamtid uu hoos u dhaco. si hilmaamkaagii aadan waxaa barata aadan u hilmaamin waxaa u baahan tahay inaad isweydiisid. ma ahan inaa mar kale kor iyo hoos u akhrisid, laakiin maxaa akhriyay maalin hore, in aad mawduucii dib maxaa ka xasuustaa, qodobada ugu waaweyn waxaas aad dib iska weydiisid. reviewga qaybtaasuu noqon karaa isagana. asxaabta videogana nigu dheereynin halkaasaan inahaasaan ku ekeenaya. aad iyo aad umahadsantihiin. sii share garee videogan haddaa ka heshay asxaabta.